hambalyo 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 dhamaan haweenka Soomaaliyeed waxaan hambaleynayaa dhamaan haweenka adduunka gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed anigu ugu hambaleynayaa maalinta haweenka adduunka munaasabada 8 Maarsa aynu ugu dabaaldegayno haweenka caalamka qaasatan dumarkeena Soomaaliyeed waa hantida qarnigan oo qarankeena Soomaaliyeed uu ka haysto ayeeyo waa udub dhaxaadka nolosha asaasigeeda waa hooyadeed waa aabba hooyadiis sida rag badan Soomaaliyeed aan ugu horeeya ay ku faanaan ana ayay koris u ah ay macantooy waan ku jeclahay nolow intee nolol jirto waxaan rabaa gabaygan uu tiriyaa Abaan Ayuub Cabdullaahi inaan ku muujiyo dareenka hooyada iyo muhiimadda ay u leedahay ummadda wuxuu ku bilaabanayaa sida tan suuban hooyadayday saatir igu abuuray 9 bilood iyo sugood sadkaad igu xambaarto calooshaadu sabay iyo saldhig aan ku leedayo suuban bay ahay suudiga kuleylkiyo saymaha qabowba sarbay noqotay dadayso horaadkaaga saxada leh caanaha ku sugan baa soor ii ahaayo sida awr la dhaanshaad igu siday tunkaago dhabtaaduna sariir iyo salli bay ahaydo si yar aan ugu gamaayo soortana markaan naco igama samreynine sasabaad in badan igu siisay dhuuniga saantayda qaawani dharbaad uga samayso silac inaan maquursamo raaxa iila soonto safaad iyo markuu cudur sahanshado naftayda awgay baa saqdii dhexe soo jeed ku raagto saxa caafimaad baad ii saadaaninayso inaan qayrkay sara maro waa saadaalinayso samaad igu anqariso faralyada la sugay iyo sunnayaal haboon iyo safxadaha kitaabka sibaad iigu dardaarto ruuxa aan kuu samafalin in saciiro lagu rido malag baa sanaadsho nebiga sax yiri subaxaad idihatiyo ilaa zamanka maanta ah waad isaacidayso siiga iyo dabayl iyo saxariir idaarana sunbay kuu yihiinoo duco aan ku samabaxo sad iiga yeesho saatir waxaan ka naawilay ku sugnaan islaamkiyo soo noqod is arag iyo nabad isku keensimo jannadii udgooneyd iyo fardowso hooy ku noqoy hooy maamooyinka xadiistu ku soo aroortay oo diinta islaamka ka hadashay mid ka mid ah haddaan soo qaadano ama aan akhriyo ninbaa waxa jirtay ninbaa u tagay nabiga wuxuuna ku yiraahday yaa rasuulullah dambi weyn baa galay ee toobad ma leeyahay ama toobad keeni karaa فقال رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما لا هي نيكي وحو يراهد مايا markale tabu nabigu weydiiyay wuxuu ku yiri hawreer ma leedahay ninkii wuxuu ku jawaabay ha kadib qaal rasuulullah sallallahu alayhi wasallam fabarraha ayada u xisaasamay ayada booski hooyada wixii u sameyn lahayd ama u baahan noqo oo kale tabu ku yiri sidaa darteed waxa xadiiska kala soo bixi karnaa inay hawreeruhu yihiin hooyinka barkood ama aan dhihi karno waa hooyinka oo kale marka sidaa darteed diintu mar hore bay xustay maamooyinka qiimaha ay leeyihiin maaha 8 bisha Maars oo kaliya mar walba waxay leeyihiin qadarin iyo qaayo waxaan u hambalyeeynaa haweenka Soomaaliyeed meel kasta dunida daafeeda kaga nool yihiin waxaan leeyahay hambalyo maalinta haweenka adduunka haweenka waxa ay si hagar la'aan uga qayb qaataan caqabad walba oo la soo dirista qoyska eedo waa shakhsiga kaliya ee si in la'aan afi adin kugu garab taagan waana lama huraanka dunida waa tii aaba ul kala jeefatay eeda macaan waxaan hambalina dumarkeena Soomaaliyeed meel walba ay joogaan hadiyad qaali ah weeye ila soo baxay weeye ugu way xaasku miya laga maarmi karaa gabadhayda macaan diin iyo maadi ubadkii lagu kurshaa qoysku ku naaxaan waa adigii aabbaha Mustafa asalkaaga ba calafaad lahayde islaamnimada wixii aan ka ahayn igaga ildheer sidii geeyo ubad dhashay oo ku ag wareegaysa diinkuba ubadkii daymo ugu koriyaa qalbigaad ku taala aabe macaan عليكم ورحمة الله وبركاته دماغ وحنو همبرينا قبلها الصوماليات lagu soo koobay hada maalin kaliya waxay naga mudan yihiin dhamaan maalmaha kale sanadkeen lagu xuso abaayo ama walaash kala dhantay qiimaha ay leedahay waa mid lagu soo koobi kari waayo dhaha ma aragtay hadal ama